Welcome back, guys. Kusoo dhawaada podcastka Ideal Ideas waa podcastka ugu wanaagsan so far imika. And horta first before we start waxaad samaysaa make sure inaad subscribe garayso YouTube channelkayga Ideal Ideas. Most definitely. Waxaan samaynaynaa waliba waxaan kusoo qoranaa Instagramka linkiga. Marka linkaad ku dhufanaysaa subscribe, like, comment. Waxa kaloo naga follow garaysaa Instagramka Ideal Ideas 2021 so you can have a good contact. And after that labada nin oo garanaysan iyaga kan sheegay horna oo aragteen I mean codkooda maqasheen imikana waad arki doontaan. So this is Faisal. This is how he look in real person. Kanoa Khalid. And so yeah, so far no more introduction. Had remittance naga badan wallahi de happy baan ahay. How you feeling today? Xawii nimco bashbashi barwaaqo. How about you? I'm feeling good. You're not feeling good? Yeah. How good I say? Hando ku sheegtuna inshallah. Hando. Yeah, that's a personal. That's yeah. Ay, so waxaan haynaa waxaan maad ka wada hadli doonaa waa basically horta podcastkan wuxuu ka hadlaa waa facts xaqiiqooyin wax jira ama wax u baahan la bedelo ama something u baahan dadku like they already know but waxa u baahan inay soo baraarugaan ama waxyaabaha adduunka ka dhaca. So imika you know, yeah, that's the podcast. Waa podcast aad wax ka faa'iidi karto at the same time and you can enjoy it too. We don't bullshit, man. That's for fact. wax beenak ma hadlo. People baan ugu raada wax beenak ka hadlashaan and that's not people go and even inuu ku sheego. Waxa jirtaniyo Faisal May. Tiro ayaan dhigay lahaaniyo the kidnapper and inan ha tiro baa la afduubtay. But like his story anu ma hayo no arinta waan ku dawaqay waxa weey inan yaro guriga xaafado la wada joogo ciyaalkuna saan maqlay qolbi ku jireen nin orama buu haba lagu leeyahay ninkii waa la soo qabtay markii dambe anigu sheekadu halkaas iga hadhay wuxuu waa markaa waa la garan waayay yani reer system ahaan oo carruurta la kala baxsanayay salaano kale family isku dhacsan oo kale carruurtu waxa weeye habib bay ahaayeen family waxa kale ninkuma isaga dhalaynanta may inanta la xaday waxa weeye aabaheedii hooyadeed qolbi ku jireen carruurtuna qolbi ku jireen marka jiingadii ayaa inta dhinac la jaray hoose uu ninkii uu galay ayuu inantii kala soo baxay la baxsaday basically marka inantii baa la soo daydiyay waa la garan waayay marka inantii marka waa la soo qabtay inantu waa safe alxamdulillah laakiin waxa la garan leeyahay reasonkii waxa loo tagay ninkii oo inantii ag fadhido waxa la wuxuu ku sameeyaanay jirin kala uu la hadlay waxa wadada aan ku dir wadada laga qabtay nin baa laga sheekay waa markii wala baafiyay wala baafiyay dadkii wuxuu ku naysiin wala baafinta wala iskarsiya garansa marka wala iskarsi nin baa ka sheekay wadada maraya kadib isaga la hadlo wuxuu ku inta taag geenaysa you know because qofka sax la yiri ala eego qof inaan yar wata marka inaan yar wata taafis waa kala garansa so he was suspicious as fuck so magaaladu kala si baxay waana first time maqal kidnapping yo I think that nigga was a pedophile no Khalid I think that nigga was Khalid waxa ka niidis wajid meel buu ku socday no purpose mu lahayn wax ma waran inta wax ku museen pedophile kuma kiba straight to hawshu galaya no I think hadu doonay lacag iyo waxa uu bedel ban lahaa mu darbana waxaan ninka naxu ku fikiran garay wax laga yaab idea uu jeclaadi kidnap you can't say nothing yo you know what I think Somali mu ku hadlay horta ku hadlay ugarin Somali ku hadlay wala qabtay kadib waxa lagu dhaxay geensa lagu dhigi wuxuu numberba waa intana inta dumi hali baa shay terrified aad yar marka markii wax la soo hadlay markii wax la hadlay baa saldhiga uu dhaway markii way yimaadeen wala qabtay sagoo saldhiga yimaan ay dadka kartan isagii ay la sii joogay video baa laga hayaa sagoo jujukanay ila saldhiga lagu dhaxdilay wala dilay la jibtay ma macnaha saldhiga lagu yar wala after you have to de waxa weeyaan waxaad ka gaarsan ka jirtaa garanaysa how many tube qabat Ahmed how many tube gurigiisa dhaarta Allah ha sama maan qaban laakiin samid aan garanayo ayaa noo soo dhacay intu kuwan gaar ku ahaa waa garasho gaar asarkii uu yimi wuxuu lacagta gaarka keena wad bixin weeyay waxaan ku ma bixinayo the same night ayaan ninkii daarada isku dhaxaray mentality adoo xambiila ninka Ilaahay baa xilaadiyay waxa doonaysa warkiisa same night labadii habeen waana suuliga galaya ay markaa
niga casarka haysanay lahaa tuugtan waxa weeyaan taasi waxay ahaan jirtay ganacsi caadi ah ya gaarka Kenya hadda Kenya weydii jeengadaha lagu dhaqaajinayo oo laga baqasinaya hal maxaa way jirtaaba iminka gaarka xaafaddu waxa weeye iyagu waa tuug markii hore tuug bay ahaayeen ciyaar xaafadka ayaa intay dhaka sameeyeen maskax keeneen ay yiraahdeen we gon guard your niggas laakiin monthly you are going to have to pay iyagu waxay ilaalinayaan cid la ilaaliyaa ma jirto no I think laakiin anaga gaarka imika xaafadan deganahay waxa weeye saaxiib baan nayba caadi buu shaqaystaa laakiin tuug baahan jiray waa la garanayaa ku sheegay sabab ku sheegay dee nin qof intuu tuugo qornayo tuug baad ahayd ma jiree laakiin waa la yaqaanaa daabti in balwadiisa lagu macday moogta ma marna qasab doonayaan waxa la isku dhaafay waxa lagu lahaa biskol baa haysta I can protect myself markaas waa ka yar baqay laakiin hadda serious tahay ka baqanaya may waxay sameeyaan waxa laga yaabaa inaanay toos ugu soo dhicinba waxa laga yaabaa inay ciyaal yar ku raadaan habeenii maalinba gurigaaga la shiido ood garan weydo meel lagaa shiidayo way dhacday waxa jiray xaafad ay ku dhacday sidaas intay gaarkii diideen ayaa muddo 3 bilood la shiiday dibadda markay u baxaan cid way arki waayaan way garan waayeen meel alla meel laga shiiday ciyaal yarda yani mid kale ciyaalka xitaa waad arki kar lahayd dhagax xitaa way garan waayeen meel laga shiido meel laga soo tuuray way garan waayeen anaga ibn ugu dhacday waxaan waanu garan weynay meel laga shiidayo mar dhexdaas waalago gaar baad u baahateen may de gaarku shaqadiisa uu qabanayay laakiin dhagaxaanun baad waliba habeen ma ahayn shaqadoodii baad casar bay ahayd dhagaxun baa soo dhacay dhow dibadda u baxa adu markaad yareed dhagaxaan mana sakadaa ka dhex turtuuri jirin laakiin halku dhagaxaas ku dhacay intaan sidaa u qabto saaxiib ilaahay baa ilaahay saacirka ugu daadiyaan sii diin jiray markaa waxa raadna ma dhacaya soo wada maray hadday yihiin ciyaal yaroo dee ciyaalku laakiin waxaan ma wadayaan dee muddo 3 bilood ma dhici karto dee ciyaal 3 bilood hal guri target garaynaya mayda obvious marka way iska garteen oo xaafadii adigu waxa dhacday markii ay guuraan ninkan ku soo noqono ninkan marka mujtadiisa ilaahay marka aanu ma fahamsani ninka waxa ka sii daran this is too much tayar xaafadoodii bay joogtay yasa reerkoodii bay la joogtay hooyadeeda beed baa joogay jiingadu soo dalashado la baxay yani anigu waxaan fahmi waay mad garan saaxiibadu yani waxaan oo dhani markay dhacayeen yani jiingad la jarayo dee qof maqlay un baa garanaya يعني حتى قلبك لو جري جيغدو ما Soomaalida macnay sheekada saxda still there ما حتى صور baa laga soo qaaday jiingada halkii laga jaray waa real story waxa laga jaray albaabka mad garanaysaa space zero aygu ka gali karo ma iska daa uu soo qabtay muu soo qaban way go'aneed bad caadi bay u go'aneed hay xaafadooda jiingada yar wanaagsan bay yani ma caadi bay u go'aneed caadi saasay la jaray maqal caadi saasay u go'aneed albaabka he was professional but end of the day he couldn't finish his job you know waxba kuma faadin waxba iska daa anigu waxaan u malaynayaa eeg waa loo mid amba disneyga wuxuu ahaa mid xaafadaha garanayo u kormeeri jiray yani joogto maanta intaanay xaafad u dhicin way kormeeraan guriga toddobaad dhan baa la eegaya inta qof ay degan yani albaabadiisa xilliyada dadku ay soo kala baxaan shaqada xitaa routine ku baranaya qofku markuu barto the perfect moment ayuu dhacaya guriga marka waxaan u malaynayaa inuu ninku xaafadda garanayay eriyada uu carruurta badan uu ku arkay uu kormeeray uu gartay exactly which is the best time oo ninkani amba markaa waa either two inuu ninkani pedophile yahay taas waa the first case scenario oo uu doonayay intuu markuu meel safe inanta dawlad tago God knows wuxuu talabaadna waxa weeye waxa laga yaabaa inuu yahay dadkan organiska iyo madkan yes kaasa aan waxaan la kaasa saddexaadna waa inuu lacag doonayay kinaabiga caadi ah laakiin lacag lama sidee ransom mad maqashay weliga magaalada qof inta la qabsaday ransom kala anaga ku sanay koranayaan waa la iswada garanayaa iyadoo loo baahan baa lagu soo qabanaya magaaladu de sidaa uma sii snap waxa kala jirtay waxaan doonaynaa weydiiyo waxa jirtay imika dalkeena ma horta laakiin waa sheeko ka dhacday Mareykanka waxa jiray ku yaroo gaari buu watay he kind of look wuxuu eegay qof TikToker ba maslayn I don't know marka keer waxa ku dhacay niyow they like you know markan doon ognay gaadhada markan baranaysan wada wadnayde adu xoog booday was racing wuxuu jiray inan iyo hooyadeed oo yar then inantii hooyadeed uu jiray ma xuma kiira waxa lagu xukumay 24 years so imso 21 so he was 21 24 years lagu xukumay 25 to life waxa weeyaan de 50 almost 25 to life
adigu waa dee ma ogid intaad noolaan sidoo laga yaabo 25 laakiin dee hadduu dee that's the longest time that's a may longest waxa time. longest, haddaa magaciisii dee laskara la he's done there, he's done. may I think waxa u soo baxi karaya before Probation. hada How hada many ninka years? nadiif Good behavior there. ha aad u qabto almost 7 years hadu sa ku Good geeyay behavior, soo deeniya maybe, yeah. marka waa simple accent casaba lagu baraya kaalin Soomaali buu ahaa Muu hayn kor cadaan oo cadaan baa dibadda then waxa dhacday I don't know what type of mentality ay isticmaalayaan hablo, not in general but like mostly they'd be like this nigga looks good, this guy qurux badan yahay uma qalma jeelka yo Ted Bundy type but the thing Wow. they right horta have they you heard right. of Ted Bundy I know I'm a big fan That's I'm a big fan biggest serial killer dee Mareykanka soo maray Ah. waa ninkaasi inta yani dadkii difaacay defensekiisa way diiday inay difaacaan because case-ku ku caddaa ninkan intuu jeelka ku jiray iskuma caawin ayuu bartay maya loogu bartay jeelka ku dhex he was bartay before Khalid may lawyer mo ahayn I know I have seen the movie it was may before. lawyer mo ahayn meeshuu isku dhex baray Faisal I've seen that movie too Are you sure? I swear to God Okay. meeshuu isku dhex baray loogii everything and he started to defend himself wuxuu gaadhay to the point ay naaga u yimaadaan meesha hablo yar yar ay yidhaahdaan he's innocent cute. waxa muu samey he's even hadduu dad dilay we don't care he's cute Yeah. dumarku dee sometimes caqligooda niyo Yeah. Maybe Khalido wixii doonay way ogeyn. They Yeah. want him wallahi. Sababtoo wuxuu ku leeyahay I don't care about wuxuu sameeyay. He's cute. He's cute. Xagee kamid laakiin dumar xagee laakiin cute. yani what kind of anigu logic what kind of logic is that laakiin dumarku wax ma yaqaan they want what they want. Okay. horta anu horta ninka de shakhsiyan waan ka naxay moogta oo de I'm not feeling proud de inuu xidhade yeah haddana at the same time haddaad halka kala eegto yeah in a family dhan baa burburade so anigu I think as a person like anigu shakhsiyan waxaan u maleynayaa horta deyn waa caadi 24 year kan la xukumo sababtoo aan garanaysaa in loo dilay haddaad soo wadataan speedka loogu u jabiyey gaari unlicensed buu ku waday yani waxyaaba baa isku babeeray wuxuu jiray Dooro magaciisii yani mom family dhan The family dhan. Waxa basically weeyaan- waa hooyadu waa halkuu familygu ka dhisan yahay yes so waxaa laga yaabaa familygaasi ilaahay u gargaarsiiyo like he said maahan that you can't just say this guy waxba isku babeeray sidaa weeyaan Aha. ha laga khafiifiyo no waxaad odhan kartaa like sense Hey, of humor ben xagee ka waran lahayn waa he's still young Ha. he's cute like no girls meesha waxa ka It's bad, eegaan it's bad. they know what they want That's a fucked up mentality. I don't want to say some dumb shit but like sometimes women's mentality is fucked up bro and they oh my god so anigo ayaga inuu iska yari ma aran comment kale Allah kada sida release him you know so you can release his cute sama you know hadda ma kala soo tahay so what he's going to do it again Yeah. he's going to do it again of course so was he drunk was he no No, he was no, no. عادي straight Oh, yeah, just yeah, fast and furious typical shit by with it Typical shit. Gary with it. It Gary was Wood. good. It looks good. so It was cheaty of the black cheaty. I can yeah su-aal yaroo la xidhiidha arrinta ayaan idin weydiinayaa is like is a matter of an opinion weeyaan so what's up habeen dhaweyd waxaan inamaan wada joognaan asxaab nahay so waxaanu ka wada hadlaynay arrinta dilka qofka tusaale ahaan oo kale fal dil galay intentionally oo markaa yani iminka diintu dee waxay tiri soo ma aha dowladda xukumaysa yani qofka waa in looga jaraa yani dadka maamulka markaa haya ayaa go-aaminaya balaakiin qofkii anigu waxaan ka fikirayay markaa waxaa reeraha go'aamiya inaga labada tol baa isla hadlaya reeraha go-aamiya adigoon doonin magtii ayay iyagu magtii koraneen aamus xaafadiinii oo dhan like just sit down annagaa magta qaadana waa la dhameeyey magtiina reeraho dhan baa qaybsanay ilaa adiga xoog soo gaadhay kaalay markaa arrintaasi niyow anigu waan kasoo horjeedaa rumaadi waayo iminka iyagu ma garan karaan yani qofkan xanuunkuu dareemayo anigu mid baan ku yidhi xitaa waxaa jira sharci cusub oo dalka ka jira oo qofka markaa dilka galay haddaad wax u geersato dhaawac whatever ambaad wax gaadhsiiso xukunka dilku haddii xitaa lagu xukumi lahaa meeshuu ka baxaya automatically waxaa tusaale ku ah qolo isku dayda baa suurtagala malaade yani whatever it is xitaa haddaad propertyga qofka aad burburiso automatically xukunkii dilka haddii xitaa dil ku dhici lahaa is out of the question basically so waxa weeye wayba dhacdayba qolo nin la shirqoolo la dilay dalka amnagon name waxa weeye qoladii dilka gashay ayaa waxa dhacday hodheel bay lahaayeen hodheelkii ayaa dib laysidoo fura markaa qola laga iibiyey hodheelkii
dadkii dilka laga galay yidhi raggii qofka naga dilaa iminkana ganacsi way yimaadeen meeshii meheradii bay jajabiyeen waxay ka dhigeen shambles marka listen to me marka wax la xasidaya family masax la xasidaya ninkan qoladan hotelka laga burburin doono ayaa dilka argosin soo waxay yiraahdeen xukunkiiba mabuu dhicine sidee u shaqaysan karaan iyagoo dilkiiba isaga dilida isaga qaata ma business mu dilida businesska isaga lahaa ninka lahaa personally ninka dilka galay ninka walaadu xidhay sama uu xidhnaa laakiin macnaha waxaan wadaa qoladani waxay rabeen in loo dilo ninka in xukunkii dilka ahaa automatically markay meeshii jijibiyeen uu masaxmay yani maba dhacayba laguma xitaa hadday xitaa u dagaalamaan yani arrintaa maxaad wadhiirsan I think waxbadan ku raacsi inaan la joojin magaciisi dilka la cancel garay markay meesha burburiyeen waa hawsha lagu jiray maxaa ninka haya may okay haddaba point kale aan idinka tuso ka soo qaad baa iminka hortaada lagu dilay waxaa jiray inan yaroo la dilay oo boorma lagu dilay oo askarigii dilay inan weeyaan dee is a boy arrintaasna waa waxa weeye askarigu wuxuu qofkii aabihii hooyadiisaan maqlay ayuu ka hordilay waalidkii baa la socday laakiinse horta basically marka maskaxiyan la hadlayo dadkiina askarta isku qaadaan askarigana maybe 5 days buu soo jeeday na waxaa laga eeg nig wuxuu yidhi maad garanaysaa eeginanku xitaa meesha iskumuu khasbin markii hore wuxuu yidhi waayo soomaalidu waxay eegaan marka ugu horse reactionkaaga eegayaan reactionkaaga hadduu yahay mid wanaagsan they won't push back askari hadduu ku dhaa joog amar buu haystaa that means that guy whatever happens that dhaafdo this guy was useless okay so sheekada haddaan dadka dhegeystayaasha aan uga yar sheekeyno yar faahfaahin waxay ahayd inanku mobil buu kaga tegay kalaaskiisa mobilkii markuu baxay ayuu xasuustay inuu mobilkii kiimida uu soo noqday soo qaato marka askarigii buu ku yidhi mobilkii baan kaga yimid kalaaskayga markaasuu yidhi may ma geli karaysid wuxuu ku yidhi haddaba waaye adigu galo ii soo qaad wuxuu ku yidhi may anna kuma soo qaadayo beritolo soo noqo wuxuu yidhi may beritolo ma soo noqon karaa imikaan doonaya adigu meeshii waa lagu murmaan u malaynaya anigu goobjoog maan ahayn kolley haa hadalba hadal dee dhaliya moogtay meeshii waa lagu murmay askarigiina markiiba keebkii inankii dee fatal shot uu dilay waalidkii baa hortaagnaa soo su-aashu waxa weeye iminkaan u socdo waxa weeye waxaad ahaydba ka soo qaad inanka aabihii baad ahayd waad hortaagantay hadduu inanku khaldan yahay dee waalid haddii macna askarigu wuxuu arkaya waalidkii baa la socda hadduu inanka yar sii deen waayo dee guardianskii baa la socda mas-uuli dadkii bini aadanka badanka kan wax doonayana xalka ma arkayo kan celinayana xalka ma arkayo so mostly dadku waxay u baahan yihiin qof saddexaad oo kana tusa halku ka qalday kana tusa waanu joogay qof way joogeen dad badan marka waxa dhaxday adiguna sug intuu waxaan dhamaanay imtixaanka waxaan ama another way baan ka fikirnaa iskuulkii waa laga dareeray cidi kuma jirin iskuulka it was empty amar buu haysanay may egg iskuulka it was empty basically so imtixaan iyo wax lagu jiray ma ahayn markii laga wada dareeray baa wuxuu yidhi soo waxaan doonaya inaan soo mobilkii aan soo qaado cidi kuma jirto maxaad sanad u leedahay so adigu basically su-aashaan imika soo wada waxa weeye askariga haddii la weydiin lahaa sababtu ugu diiday bilowga in la weydiiyahayd maxaa macnaha investigation imika u socdaa weli lama go-aamin laakiin magaaladii inankuna dee wuxuu ahaa inanku magaalada jaamacad buu soo doontay dadkii magaalada degayay muu ahayn meel fog buu ga yimid anuu tala haddaan siinayo askarigu amar buu haystaa whatever anu waxaan ogay maanta haddaan askaris ka soo horbaxno all he's looking wuxuu aniga iga filaya iga sugaya waa in yaroo qalada because hadduu arkayna ka saxsanay 100% waxay doontaa hadda wuxuu doonayaa in yaroo cidileego qalada inuu igu arko intaa markuu igu arko bes laakiin eeg inankani wuu saxsanaa because his job there may eeg inankani muu ahayn horta inan dee wuxuu ahaa jaamacaddu ka tirsanaa wuxuu sitay kaarhkii buu sitay iminka maanta anigu jaamacaddan dhigto kaarh haddaan sito 10 jeer baan jaamacadda wax kaga yimid askariga albaabka waan u sheega waxaan ku dhaha arday jaamacad baan ahay waxaan kaga yimid waxaya wax orada soo qaaday imtixaankii maxay gu ahaa imtixaan bro is not about imtixaankii waa la dhameeyey jaamacadda cidimay joogin empty bay ahayd so there was no reason I need to talk person to the askariga askariga taasi inagu ma gaadhayno the level qoriga qofku dhufanaya waa it should be something yo let me give you my ana eeg sheega kalaan ku sheegay askartu mar walba ma saxsana
reasonskooda always waa stupid war qof anaga waxa dhacday a while ago ayaa confrontation saas oo kale anigii inaanu saaxiibnahay probably dedaaniga labadayaduba waxaanu ku jirnay situation adag so situationkaas wuxuu nagu khasbay inaanu askari aanu ka hor imano markaa situationka anaga wixiina lagu haystayna lagu celinaya wuxuu ahaa khalad buu ahaa khaladka isagu mu ogeen uu ogaa askarigu uu ogaa waayo waxaanu weydiinay wax kalaba maahan waxaanu ka odhanay waxaan dhacaya waa khalad haddaadan adigu go-aankaa qaadan karin waxaad noogu yeedhaa mas-uulkii sarena meesha uu joogay wuxuu yidhi maba odhan ba idinkuma yeedhaya waxaa qorigii buu qaaday qorigii dabadiisii wuxuu bilaabay inuu inankii la socday waxba ku dhuftay baa inankii ma garanaysa horta intaas ku qaldayn horta gacanta like marka inanka xitaa askartii waxay gaadhay arrintii heer askartii la shaqaynaysay intay noo yimaadaan ay nagu yidhaahdaan wuu khaldan yahay raali noqda khalad buu galay raali noqday annaga dib noo ma garanaysaa marka askartu weliba anigu experiencekan la kulmay askari walba waxa weeye khaladkiisu saxaa yani wuu isla saxsan yahay mar walba wuxuu arkaa qof oo yimaado challenge buu arkaa inuu ku yahay so basically adigu so I mean the question is bro maraba inaan sii dheeray waxa weeye haddii ka waran inanka aabihii aad ahaan lahayd ood mashaacir baa ku qaadi karta you are human basically you can feel anger at that moment you feel huge as pain your son your blood your flesh ayaa hortaada nafta lagaga jaray bro yani markaa imagine haddii on spot yani waxbaa ku qaadi kara haddii aan gacan qaado oon askarigaa wax ku dhufto kasoo qaada askarigu muu dhiman laakiin dhaawac baan u gaarsiiyey xukunkaa yani dhaawaca aan u dhuftay aniga waxaan anigu aaminsanahay in aniga dib xukunkaa laygu xukumo weyaan waxaasaan gaarsiiyey laakiin inay wax ka yarayso maaha khalad ku galay haddii dil lagu xukumay way dhacdaa baan kula yahay yani way dhacdaa waa xeer jira dee waa xeer jira anugu haddaan meesha taaganay oo inankaygii oo kale horteeda lagu dilo horta dee personally marka aniga iska hadlayo horta dee iguma jirto dee qofkan kala dil but I would do something like this so what's your solution waa maxay hadduu inankana assist yahay moolka soo qaadanaya gacmo sarta for sure of course hadduu nafta hadduu hortaada yani isma qaban karti yiro I don't think inaad og tahay the feeling because ninkan dil u dilay markaba ma soo gelayso laakiinse dee I don't think you've been in that situation markaad gasho bad garan of course laakiin as a human nature waxaan ogahay 100% anigu ficil baan samayn lahaa I would have killed that nigga maybe I would have can I give my opinion that's my flesh and blood he just killed in front of me Khalid listen to me and askarigu is not inuu qaado the weapon to a civilian do not shoot a gun but like there's a law la dejiyay ma garanaysaa 4 years ago oo la yiri askarigu waxa weeye haddii cid isku taagto xaq wuxuu u leeyahay inuu kow kaga siiyo there's a law bro this is not staaginta caadiga waxa weeyaan whatever it is imika inankani askarigana waxa laga yaabaa inuu arkay arrintaas isku taag waayo markuu raado waan soo qaadanaya iyo ma soo qaadanayo Axmed adigu hadduu mobilkaagu meesha kaa dhex yaalo anugu I'm not the type of niggas askariga inta hor istaagan qaylqayliya wallahi ma qaylinaysid waxaad tiraba iyo soo qaado ku diiday what would you do two things wax qoran laaniyo sababtay sheeg wuxuu bari sabab kuma sheegi karaa reasonkiisa he wouldn't tell you a reason waa askari he will never tell you a reason then I will think about something else inta markuu igu dhacdo I have two choice inaan iskaga tago ama inaan hela another way because ninkan waa askari qori buu sitaa listen to me listen to me ama orunta ama iskaga tag ama waxaan leeyahay anigu qoysi ama macna ma dhigo qof u dhow qof aan just leave him isaga iskaga tagila qof anigu qof macalin ama qof mas'uul meeshan ka biisha macdan soo sareeya in la markiiba laakiin haddaan dagaal doonayo okay imagine ma garanaysid ba imagine macallimiinta numberadooda you don't know them like that okay number new button so training ku dadka ku sabi hadda like personal I know I don't like troubles mostly so hadda aniga class helaan they may was get gila even haddu telefoonka haysto next day won't noqon laha if it was me there someone else waxa dhici karta sida kan yaro kale inuu la dagaalamada people are different anigu listen to me I will leave them both ayala better than me bro I know listen to me
I will leave them after swear wallahi that's the good you know option, why man that's the good bro I option hate cops and I know 90% of You have to know Cops when you're losing. Like you have to know before you do anything. I know better bro Ninkan waa askari haddaad taabataada kiis ku jira yo and hadhow muran bay gelaysaa for all of these haddaad saga yo if the odds are against me I'm passing up Yeah, you I'm need dipping yeah but like Odds kale, if odds I can entirely know before you that I can move do your something hands. about it at the moment I'll just do it like haddii de on spot ay ku dhacdo and this thing de adoon kasoo fikirin de yeah wallahi askari waa khaldan 100% I will give the blame of course man orta first problem waxa weeyaan qof civilian oo aan sidin qori oo shacaba ha u qaadan wallahi ha u qaadan that's a khalad weyn wasa sheegtay Ahmed I think 5 days soo jeeday there's not possible human nature ana wa garanaya kibri weyn inuu duriyo ka yar wallahi billahi dhibaataduna iyaga ma hawa like waa balwada de I know and drugs police have a drugs on it so waxa weeyaan 50-50 chance inay ku dilaan yeah 3 days mu seexan okay 5 days mu seexan let's just say qofkan mentally caadi ma fikirayba okay haddaad meel yara fadhiiso la shaqaysto is different he's out so hadduu doono markuu xabadda riday he didn't know I think he knew I mean he know but I think he knew qaybtii baan ku jirin u yara kaadii waxba ka baxaysa situationka eeg iyo so hadduu yiraahdo but laakiin they're the force ee dalka ilaalinaya nabadda sugaya they have to be the ones saaxiib balwada in laga daayo weeyaan how the hell that's a thing that will never stop will never stop askari balwad waxa lagu leeyahay wadamada qaar ciidamada waxa loo ogolaadaa 3 things yani even hadday muslim yihiin waxa kamid ah ciidamo dalal muslima jooga oo dagaalo gala oo lagu raado 3 things baa leedin oo kaliya you can drink alcohol you can have women iyo shay saddexaad baa jiray laguma laydinma xirayo haddii wadada lagu qabto iyagoo sakhraansan waliba military I think that's a corrupt cities way dawladda kule ireen corrupt waxa weeyaan will always be corrupted sababtoo that's alcohol iyo women so maanta ninka militariga haddii meelaha qaar of course you wanna go corrupt yo fuck your life up just do you know the reason a country that's the reason corrupt waxa way qaad ka sax waalaya everything qaad ka sax waalaya okay problem ugu horeeyo waa asaga waxa way soo jeeday wax badan askartun ka daaya shacabku caadi tasna talabana askarga ma dadka caawiya kuwa dalka ku jira booliiska xitaa saldhiyaasha dhex joogay they do everything how many difaac balana dalkeena u badan yihiin sama asna ma qofka magaciisi dalkeena difaacaya so yeah guys I think break when you're regularly let's do that for like 1 minute 2 minutes I guess and yeah we'll be back one last thing like comment and subscribe to our YouTube channel waliba Soomaaliya ku sheegnay YouTube channel waa ideal ideas space bar dhaxaya Instagram kana waa iska cusubiyay laakiin inshallah there will be more I guess yes sir ideal/ideas 2021 yes sir 2021 yes sir so yeah we'll be back and see ya kusoo dhow Aladdin shopping waxaan filayaa page-kayga markaad soo booqato waxa maskaxdaada kusoo dhacaysa laba su'aalood su'aasha koowaad waxa weeyaan Aladdin waa maxay qaabkee buu shaqeeyaa Aladdin waxa uu shaqeeyaa qaab international ah ama caalami ah sida Amazon ama Alibaba waxaan alaabaha ka keenaa hadday tahay electronic mariyo kabo saacado iyo waxyaabaha kale la xidhiidha ee la isku qurxiyo daafaha dunida oo dhan haddaba su'aasha labaad ee isweydiinaysa waxa weeyaan okay gartay Aladdin wuxuu yahay laakiinse welcome back guys after break and kasoo noqonay kusoo noqdo horta podcast-ka hadalkan halkii aan kasii wadan doonaa iyo waxaan kasii wada hadlaynayba iyo qodobyo kale iyaguna aad muhiim u ah marka horta make sure comment kan yareen mar walba ku weydiinay iyo like tan aan ku daalnay waxaad most important waxa weeyaan like comment horta think your opinion kan ku soo qoranto comment every video like ideoina see give us some comments you know anything because you want iska soo qaad inaad halkan doonaysid inaad fadhidaba kaba soo qaad marka opinion kaaga halkan naga soo hadalladaas wuxuu dhalay hadallada kale ee garanaysa so feel free horena ii sheegay feel free qodobyadaanu ka hadalnay haddaad
ra'yi aad ka leedahay ra'yiga waad dhiiban ama wax cusub haddaad hayso ambaad wax kale aad kusoo kordhin karto aan anigu ogeyn aan noqonana dadka xun ee toxic kan garanaysa hawsha isku haysta dadkaas aan ciidaniyo I hate those people, man. Do you know what I'm talking about? Hate's a big word. Yeah? You say I don't like those kind of people. Hate is a huge word. Hate is a huge word, yes. Okay, I'll be annoyed as fuck. Yeah. Hey, annoying. That's much better, bro. So, waxaan ka hadlaya waxa weeyaan annoying waxaan ka hadlayaa tusaale ahaan some people will see you are at the top and you're grinding, you know. Let's only say two different things. waad hasal garanaysaa macnaha waad shaqaysanaysaa like you wake up subaxdii suwanaga yes and strong routine but like strong schedule wanaagsan bal you're dying inside still what's kenisa qofku ku arko wuxuu koranaya disnaga waa damn it's hustle but inside up to a struggle hard work marka qofku shaqada ka arko only two things wuu koran karaya keep it going or you have to shut the fuck up miskamso simple no negative like there's always a third you know opinion ka haranaya who the fuck is he it's like that it's more yeah I've seen some those people I mean I think you've seen some people horta way jiraan like basically waxa jira imka kale and you can't say haters waxa weeyaan haters horta people sometimes waxa jira the way they approach you say kugu imanayaan ma aragtay this guy inside intentionally waxa dhici karta inuu u jeedo wax wanaagsan but the way he comes to you is like you won't even like it sometimes maybe okay how like as a joke there maybe like you guys are not doing shit maybe inside he's thinking about something good and like sadano ku imana qorana up to you wixin waa trash like inside kisa he have a good shit like he's outside ka ma garanayo sidii de qofkan good way da odhanayd marka waxa ka soo horanaya so what dabeecad waa something that he was born with like of mood in there yo like if you got something good inside just spit it out there the way it is like is dad ano harkay some real niggas like caadi waan marka qofka caadi ugu fiirsato ayada caadi u arkaysa dad u fiirsato like mostly dadku ma fiirsadaan haddii imka qofkii kale kula hadlay uu yiraahdo like play up to him waa trash you can still feel this person there like who I think no sometimes not way and this one what you say is how you say it is how you say it how you say it how you say it waxman sa qaar baa laakiin soo jeeda warcad hadii dadka warka cad wanaagsi oo dadka warka hadii qalad qofkaas inuu ku nacido ku naci stay away from him simple as that like waxa jirta kuwa hoos qoysanaya you know macaan baan ogaan jiray dadka xun oo jacayl dadka wanaagsan wuxuu labadaas waa iska ilaalin kartaa midna waa wanaagsan waa soo dhaweynaysa midna wuxuu iska ilaalinaysa like two face kaas please be careful be orange markasta so macaan to biyan waha I don't know what who mijiday until now because marka yartahay waxa ma yaraysan which school qof kasta wuxuu ujeedo lahaanaya qof kasta variable saaranaya qof kasta qofka ugu qiimaysan wuxuu noqonayaa your parent ka level of parents your siblings ayraado the rest waxa ku noqonayaan variable saaran ama qofka waa soo dhaweysanaysa ama iska fogeynaysa like you never know qofka two face ka ku hoos qoysanaya markasta so that's true I was trying to say how passive aggressive jira xalada hoos approach garayo so wuxuu koraya inuu qaal salahan you start a business sama talk me with a normal conversation lahal you know maxaa qabatan what do you do answer me start a conversation si caadi Faisal I was pretending to be the other guy okay waxaan ka shaqeeyaa company la raado etc okay etc sama okay maxaa iibisaan what do you do waxaan iibinaa alaab fara badan waxa kamid ah like what like I'm being serious waraaqo bugaag sama your faces are funny waxa ay wanaagsan Khalid waxa wanaagsan inaad magiciisiyaan ku shaqeysaan magiciisiyaan kamarada iyo network waraaqada waxa in faadayso dalka lama baahna waxay baahan tahay inuu wuxuu koranayaan wuxuu doonaya ka waciyada way inuu detour you have a struggle whole balad yani bro you got road balad wala you build that road every fucking day you let another nigga waxa ku sheegay opinion waxa your real friends waxa ku sheegayaan what you don't know what do you need dadka kale ku raacayaan I understand that that's the real friend the OGs but the people who knows you from a distance and that's when it's good garray dadkaasi build what you're building what was that fight
say what Sum- hawayaan ku sheegay wax. wuxuu ku sheegayaa Something waa aggressive suu ku sheegayo Aye. yani wax maleeca qabata laakiin saa wuxuu ku sheegay si passive ah wuxuu ku kuma muujinayo hadalka kuma passive muujinayo waxa laakiin muujinaya sarbeeb baa ku dhex jirta wixii soo wuxuu dhahay kuna waxa iska dayo in waxaan ku wuri waraaqaha iska dayo waxa dalbataan electronic kamaradaha iyo laptopda iyo waxa dalbada garanaysa Yo, waxaan dalkan una shaqeynaya you know why I've seen a lot of those you know why I've you seen know a why lot of those you know why this guy maybe that's what he's thinking ha saas in his way in his way waan fahamsan okay Yeah. waan fahamsan isaga so laakiin sababtu ku sheegan so kara understanding kiwa ka maqan like this is your thing so qof can respect his thing ha maybe just feel like Feel like the accommodation what's in karasa like true حتى it's a good way that rather if it was me aniga hadan hal laha waxaasan bilaabi lahaa iska dhay like speak for yourself like he's a qof kalo a whole thing wata this guy a whole mission buu wata and you just charm in and then you want to change the whole thing to what you want what do you want that's you bro that's you okay yeah qofka ma ogtahay inuu magaciisi daawado every day videos oo caawinaya Exactly, dadku yeah. wareysto yani you don't know every day he's learning everybody exactly so one meeting was arkasan you're exchanging conversation kala hoolansan dadku Facts. doonaya inuu ku qarxiyo the bomb and I'm sure uu Hey, doonaya it's Ahmed bad, May man. Ahmed uu doonaya Like, in my I opinion think to be honest I think Okay. 80% of يعني markaad wax qabanayso يعني 80% dadka aad la kulanto I think they will be just like that because way yar yihiin dad ma garanaysaa ogol yeah يعني successkaaga amba dee It's movementiga aad qabanayso aad samaynayso it's because hard yeah is I think that's common there anigu mid baan arkay when I was in China what's up there was a bal oran jiray eh? okay okay I don't know waa caadi Oh, shut you just have to bleep that out. Aye. shut His name was what's up Yo, yo, why nah, don't say that. I'm not being naughty. waxaa jiray Too ku please. yar on China You have to bleep that out, like Yeah. don't forget, bro. yeah I will Your kun future. jero shane dad Bleep baan that uga out. shab no names so this guy no was names no face was like wuxuu ahaa inago kala de let's just say we were in the same school aye wada asxaabeen nahay we all got the same bread qof ma jira inaga this guy all of a sudden he just went out I don't know what he did waxa la yidhaha adeerkii baa caawiyey somehow the guy just got bro like Bird. a big one well okay so the guy was eating good and I'm in the circle Yo, in it is that the nigga I was telling you about Manchester? no mid kale aan maalin ku tusay Ah. so aniga inakii markaa Oh, that yeah, nigga. yeah, these guys, the circle, they've been beefing on him. Like, this guy, imika who's maanaya. I was like, guys, isma maanayo. It's The just that guy he's got different his level. way out. He's in a Yeah. different level He's in no, different level, ah. he's out because he's facing Bankuri, the real life now. We should be going to, in Tagne head on with, you know, like how he did it. Okay, Again, instead of hadad complaining weydiisaan wuu idiin sheegaya. Bro, Anika, personally, he's really close to me. You know why? Markan arko, I don't talk behind him. Markan say arkana, I sit with him. I ask him a lot of questions after how you did it. Me. Like, cause I wanna be Exactly. like him. Yeah. But you can't just Facts. Yeah, That is but that is also true. I But like, believe- I think that's human nature though. but it's Waayo waa marmar dhisbaa saadoo kale noqda it's moogtay. bad, it's bad. Lakin I know majority of the niggas because I think that's very common like in Faisalo. Yeah. Because it's- whenever you start to do like big hadda waxa things, la haydeen people will say like you've changed. That's the first Yeah, thing they'll say. yeah. He's Yeah, changed. He's wha- different. He's what should I this, do stay the same position Nah. yeah of course I will change And I know for a fact that majority of the niggas that's saying this, if they were real hustlers, they will understand him. Bro, I respect every They will hustle. understand him Whoever because you are. respect is a big word Khalil. Even Ah, you know, Ihtiram. we have a lot of hustling young niggas. Like, I love in time bro, whenever I go to them, I just encourage them like crazy. They You know, encourage me one back. time- They say like, "Yo, y'all doing good." I say, "Bro, I'm just trying to be like you," Yeah. and we just motivate each other. That's how we have. That's how it's supposed to be because y'all know the struggles that both of you go through like making your bread daily Or wax on a kasta, daily bro. basis. Subaxdii markaad soo hadaad aragto qof like basically ba just be nice to everybody Yeah. because moogid qofkan markuu soo kaco what he's going through you will never know so just xitaa hadaad arkayso this guy's doing shit just tell him yo you're doing good Yeah, you think because you're doing that will help him somehow good. Yeah but
حتى if you can give him positive, you'd be like, nah, I can't do this. just keep your mouth shut. Scam so. Yeah. No. You'd be Okay, like, what's something scam? Yeah. Inuu scam. Oh, that's why that's cheap that's that the I do it. reason I ditched a lot of niggas yeah. that I was close with back in Yeah. the days, because you can feel the hate from a mile away, bro. No, it's not hate actually. It's like I don't, It's kinda hate. I don't have that thing. I don't have that thing, so I don't know what it is. I think you Okay. feel that. I think everybody feels Ahmed it. pacifist. You look like a pacifist. يعني. No hate. All. Looking Like seeing hate everything which- from If, abroad. Hello. if you Ahmed Allah hate hate which somebody, if you hate somebody, it's painful to you, sir. Wait, It Salah. hurts you. Bro, other people guy. throw So- around so- hate so easy, bro. Let me You won't even know. ask I know. you. Let me put you in a If you have to scenario. look around, bro, you will feel that shit. Because Yeah. you don't look around, that's why you don't feel it. That's the thing. But if you start, if you look around, Yeah. you'll feel that shit. Yeah, for and real. you Let have to me- ignore it. guys, If you look, other gonna, you have to give it back there. Yeah. And if No, you give don't it have back- to. If you notice, you don't have to give it back. You just move around. Dip. You know how to deal with it, Because because you'll know exactly who to deal with. yeah, Okay, you're hurting. You're not adding anything positive to my life. Okay, I'm dipping. yeah, simple. And you my nigga and all, just like I'm not. I'm cool. I don't have bad feelings, but like I'm dipping. Yeah, I'm still like, And I know for a fact they'll feel so freaking bad. Even though adigoo waxba bilaabin ba like on the process lagu oranaya in hada lagu iman lagu oranaya yo you doing this stuff come on But like in there's an easy fix to that, basically. and but a lot of people take seriously. No, there's an No. easy fix to that, to be honest. Yeah. 100%. Well, okay, tell it to the people, man. Don't tell your shit to nobody. Keep it on the low. Hello. Do your thing. Waxa la yidhi, People will not notice. no. I don't think people will notice that shit. of course. The thing, keep your thing to yourself, maha, like, Now I'm saying your movements. How you do things. Hal baan maqla- Just do you. Out of Just nowhere, do you. they'll that's that basically if that's someone see you doing something, don't hide. Just let them see whatever. You don't care. no, like Because what you I'm was saying doing is your thing. no, what I'm saying is explaining in depth exactly what you do. Exactly. Yes. For That's example, why- for example, you don't just showboat your shit. You do it on the low. You do your shit. You hustle. You grind. always here there. Yeah. You can't go deep. Exactly. What and, do you do? I and do people this. will just see you out of nowhere, like blooming, basically, Mhm. and they'll be like, "Shit, hey, yo, since when? You'll be like, "Bro, I'm just like a minute ago." You won't even say a while ago. You'll just like it's alright, like normal thing. Hadduu qof Yeah, hadduu qof I mean, doonaya go- kaa go. qaato baan advice uu ku weydiin lahaa. Yeah. Adigoo isagoo waxba baahan ba ay ku oranaya saas do that. Yani wuxuu cunaysaa you have to say that, Ahmedo. You have to say, he has to get rid of Yeah, this thing everybody from has his an chest. opinion. Everyone has an opinion. Yeah. But you don't have to tell him the people. Yeah. They feel entitled, hadduu rabo ku give their weydiinaya. opinion. Yeah. So actually work hard in silently, Yeah. in silently. Wax kasta silent u sameeyo. Yeah. Sababtoo waa soo Don't be khalsheegay. loud. I don't think people can do that, bro. So yes, I swear bragging to God. Hello, bragging. Nowadays it feels like people can't. malaha intaan anigu socday I've seen only one nigga that keeps his shit to the low list. you won't even notice, bro. Just magaalada markaas kaga soo baxdan, you'll just see this nigga and he looks like an ordinary guy. To You the won't even bone. know. Bro, that's the only person I've seen. But like in the rest, I know for a fact. They feel people have to see them doing shit. People don't have to see you doing your stuff, bro. You have to see yourself doing shit. Yeah. And if you're satisfied with yourself, you don't need no fucking Especially- validation. and You don't need validation from other people. أنا مدك خويا. I think you work out, Ahmedo. Yeah. When you're in the gym, Yeah. how many pictures was I daily? At the Before, beginning, you mean at now? the beginning, Beginning, I was so excited. of course. Yeah. You will never do that. We have to show the people that you hit the gym. Yeah. You cannot share it. You have to. So up to why? Why you have to share it? You know why? Why you not? Gym go share for yourself, for Yeah. not the people to see. I don't think people do that. I think even I if don't they know. did it for themselves, they They like to are. see. They like I people like to see. see like how I'm doing, basically. No, he's saying like, would you post that shit on the internet? Yeah. You would post it. Yeah. So But then he you only told post me- it he only not told for me. yourself, because when you took the picture, you saw it for yourself. That was for But like yourself. you want other people to see. Basically, that's Yeah. why you posted it on your basically account. Uh-huh. So you I want- love my Instagram though. I know you I love like you Instagram, guys but love it. it's But that's the to- thing, though. You people- know, you yeah, want well, people you want behind to it. see your results. No. Your results. I think I know the way I use my Instagram is different than you guys. I don't know. Hey, The way I that's use after. is That's like after. a memory.
So I have like. Okay, listen to me. أنا حبيت كويس. أنا حبيت كويس. If you want memory, simple stuff, simple pictures, save it on your phone. It's good. خلاص. It's good to have. But you story goes on. Crazy memory. 50 crazy memory. أحمد which is animated. You want to see people somehow hard day. Hard day والله said day. Say yes to the cameraman. This one. This nigga. I was back here. in the day. He did it for the girls. Hell yeah, day of course. But right now you're just chilling there. Right now you. Okay. Have you seen posting? Have you seen posting? No. Yeah. It's been a minute. Now he's buff. Now he's buff. He doesn't boast. I'm not. But when he was shit mukoha, he used to boast. Why? It's up to how people want to see. I mean, simple as that. Ahmed. When I was shit, I used to not post. You used to post. Market, but that was what boast currency. Yeah, bro. Ups and downs. We took care of it. Like right now, who أدبك ويرتي. After what how times change. You realize this is bullshit. No. You know why? I don't think time changed. I think his mentality just changed. Yes. Because people, time will not change you. Your mentality will. I see people say that time changes people. waxa weeyaan waa waxyaabaad aragtay soo martay. That's That's mostly marka lagu leeyahay qofkan waa waayar ama uu kaawan yahay. Bro, you guys have the same mind. Maskaxda isku mid baan ku jirtaa. Laakiin the experience baan ku jira. Laakiin wuxuu isagu soo arkay. It's different. It's on two different phones with a lot of pictures. Bastigin waxa weeyaan hadii wax nagu dhacaan just for future na mar labaad ku dhaca. Simple. Exactly. Yeah. That's the thing. So that's what I know simple answer. Let me confess something. I get jealous when I see one of my friends success. Like I don't show it. I generate that honesty. to a bit of honesty. You know, that's honesty. Yeah. Like a motivation. Keeping it real. Of course. It's motivation. Bro. When you see someone doing good, you'll be like, man, fuck, this is good. This is I need to do something like that. Like why he did it, how exactly. he did it. No, it's like this is good, bro. Like you should be. And this is what we were talking about the other day. Like when you see people grinding and they're seeing results, you have to feel like you have to do something. Not just say, but like pure hate is and pure jealousy is when you just say, fuck, I don't want this nigga to have this. I think it's hard to have that thing. Someone it's hard for you, but like it's hard, that's common, bro, for people. Really, it's hard for you, that's you, but like it's common for people. Because people will think like, this nigga can have, I'm living like this and he's living like this. Nah, can't allow that. They will not. Their mentality will be different. They will not think like the right way. Like the right way of thinking is, you have to grind. Deep. Let me ask you. You have to like grind just like right now. waxaad joogtaa magaciisa grinding oo top level ba waad joogtaa waxaan ku siiyay something khaliban see something magaciisa you know I think when you grow whatever I don't know shit affects you different than when you wasn't like of course like how affect you I mean like before you didn't care but now you will care I guess more care about who like about before you was like when you was let's just say when you was low if someone say shit about you wouldn't care that much but now you're grinding hard because now you know what you did if someone says shit you can't take it because you know what you go through so you won't allow anybody to say shit like that but like that's another thing though if you react to every single thing you'll just exalt yourself. Bro, if you react to every single thing that you come across on a daily on a day-to-day basis. dad wanaagsan ilaahay hareeraha soo always the best that's mashallah that's the goal so scenario doonaya inaan dhigo Ahmed like at stop waxaad heshay simple thing ku baabaay kale his businesskiisu will you do that no you don't know Ahmed this guy there no you don't know Ahmed haddaanan garanayn wayba kasii fiican tahay because I don't know this nigga I don't have zero reasons to do that but if you know him if I know him I will never do that exactly so most people I can just go up to him and ask him bro how did you do this no do you believe in the channel even if he doesn't tell me I will find someone that will help me even if I don't find anyone that will help me I'll just do it myself
I don't care if it takes me 10 years, if it No takes one me can sit 20 here years. and say that in person. I will just grind, bro. You know It's that. just, Of course, it's of all about course, mentality, like, bro, Faisal. like, It's all about mentality. I Okay, would you do that? Never. no waxaan ku leeyahay Waa ka samayn lahaa. ka samayn- Caadiga u soo I am laga soo I am a fadhiisto. qarin ha Aad weydiiso. laakiin uu He will jecel never admit that. His life will never. Bro, on my Like he- life, like- on like he will everything I put up- love, I know family members on Oga, there was nothing, bro. And then out of nowhere, where he got in, bro, crazy levels. Bro, I was just happy for them. Even when Utegi, I told them, like, bro, how did you do this? do you say family members That's Family how it members, like yeah. like how cousins Whatever. I don't want to specify, bro. Just family members. Okay. Yeah, because they might just see this, bro. You never know, bro. Can I ask you a question? Can Can I ask you a have question? something Yeah. to say about Yeah, it? can I have a Yeah, question? yeah, what's up? Go ahead. Fish. Hey, shoot it, Tell bro. us, bro. Shoot it, So bro. what I was saying is waxa lahaa Horse money house. Other side, yeah. yeah cousins close cousins waa okay They're family, close, family. yeah. Second and third cousins waxa like waxa weeyaan it's kind of fake friend but he's in your life already Yeah. you know Fourth cousin is, yeah. well fake cousin but he's already in your life you can't stop it because magac buu kusoo galaya I'm your cousin wuu koranaya every single day Man, I don't give a shit So, about that. family school you can of course but That's facts. hado aroos markay gaadho your family You're there. like, some gathering He's he's there. there grasa he will say a lot of stuff and you can do nothing about him because he's your family Ah, nah, And I don't have no your filter parents for- listen to me Do you know Do you how know- many cousins I've fought? Bro, these hands don't discriminate, bro. Yeah. Family, friends, They're they're for. equal, bro. yeah So- so If they're out of line, it doesn't matter, bro. If Even- they're out of line, yani, you have to treat them equally. let me tell you something Yeah. why first cousins are not closer than friends friends are always closer than you there's no one closer than you Amir Bro, Okay. you know what? I don't believe like why for why me is as that a Ahmed? person. Why is that because you I treat the person as who he is. Like you can't say this is my cousin, this is my friend. No. you treat the person Yeah, like sidii naftoodii somehow yeah, like sida Exactly, okay yeah. so la Yo, dhaqmaysa. I have cousins that I love to death, bro. Yeah, Like, you they are see? like Who- Because who- they are who- like who that, gartay that's laakiin waxaan ku leeyahay my brothers, bro. yeah of course Yani, bro, yani, they know everything, bro. Yani, they know everything just like my niggas know. Because they're basically like my niggas. Yani, you don't have to hide anything from them. Your family, and they treat you like friends. They will hold your secret. And beside that, they're your family. But those ones are hard to find, though. yeah. of course I Yeah, have- family I and- was and a about friend. to say that wallah Yeah. I have one. But of course, you'll So, just of keep course, some mashallah. Real nigga. private from hey them. well I keep them I really like because Real nigga. Yeah. waa hard Shout to out to find to like- rare because cousins waxa weeyaan waa friend already there haddii xaas ku noqdo ku dhamaatay Exactly. he will But be like, very- he will be the rest of Yeah. your life ku xaasadiya yeah. haddii doona wuxuu kugu darayaa his father Yeah. no your father buu kugu darayaa Yeah. if he's more kind of in a smart way because Yeah. growing up horta dee aabu wax kasta wuxuu kula doonayaa naftiisa horta wax wuxuu jecel Exactly. he will say be a doctor be a lawyer you know Exactly. so if your cousin is a successful doctor and you're not and you're struggling he will say why you be like him Yeah. like so like Ahmed wuxuu noqon waaya ama Khalid oo kale something like that you can mad man because usuna waxba kuma sheegayo you're not gonna tell you nothing I think parents just parents waxa just weeyaan, use that use for the- motivation, nothing else. but Like that- what? When they say like, why don't you be like your this and cousin that? Your cousin, why don't you be just like your friend? And you got a It's lot like- to say, but you have to hold it back. It's like a motivation. Yani, I know. they're thinking from this point of view, like motivate them, And I not that- like they're not thinking like out of the rip, like At just that put point, this. adigu put waxaad them- doonaysaa inaad u jawaabto dee runta u sheegto oo dee like you want to say like they got their views somehow Yeah. but you don't want to argue there. Now you can just state your opinion State- like calmly. You can just tell them like, bro, do you know fathers if you're a grown up Ah. and you can't state your opinion to your family and parents, just bro, come on, bro. Life is too tough for that. Facts. You have when Facts. you're 20 and above, you have to state your opinion, bro. If you have an opinion, you have to just say it. You have to stand up for yourself. Exactly. In a good way. Yeah. In a good bro. She's a mom, she's a dad, like he's a dad. This is me. This is what I do. This is what I want. Yeah. but Please. most families are like that Allah. I know. what are you gonna say Hagana laga gelaya, hagana laga soo baxaya. what are you gonna say Ahmed because I've So- seen a friend right now Be a strong Ahmed, man. listen to me. Be a strong man. I'm Hold sorry that shit. he's already broken wallah like that friend like
he came from. He was kind of little. We're out there. We're not Hassan Ankara, kind of chubby, Yeah. Right now, he's the skinniest man alive. I know. Right now, Allah. He went from Balwudu Galay, Hawayan, like how many different things, ideas we share. But right now, everything's burn. He was both parents. They couldn't allow him. To anything, man. I felt so bad that I am his friend. Wallahi, sometimes I couldn't do nothing to help him. So I feel bad for that friend. Wallahi, so bad. I feel hopeless, Ahmedo. Do you think have you been that place? Feeling hopeless to a friend, like you can't do nothing because of family issues. Friend at the limit to the family. You can't get it. You can't do nothing. One eye. Who the hell are you? Tell this guy. Look at me, Khalid. Who the hell are you? What are you gonna do? What are you gonna do, man? Nothing, bro. Nothing. But I think, it's rare to find family like parents that doesn't want you to succeed. Nah. Basically, Every family member wants their the way yeah, support exactly. qaar baa waxay sameeyaan negative kay ku support garanayaan. Yeah. So adiga lagu baahan yahay, you have to translate that shit in your head. Marka negative ku soo gamaan inad taraawayaan de what they meant is just all they doing this thing isku soo wada duuduub soo wada xidhxidh wax Bro, parents just all want the this best shit for you. waxay rabaan for me to succeed. Parents Whatever they just say, want good the or bad. best for you. But I'm not it gonna say happens to me daily, there bro. are zero chance that parents can be like bad parents. Waxa la doonayaan There are, adigu of course. adigu inaad ahaato like just take it. Yeah. They let's just say your parents are negative. Take it, bro. Just take it and Suck like it, bro. Ahmed, Like you haddii said, yiraahdaan big Ahmed, time ka gasho on the other side, outside. Markaad iyaga saa uga tagto, do your thing. like haddii ku yiraahdaan Ahmed, we want you to be like them. Khalas, end of story. So basically waxaan lahayn waalidka haddii ilmahaaga mostly sen kusoo wada kornay waa sidii aabayaashin ama u yeesheen ugu soo koriyeen. Marka ilmaha haddaad wax u sheegayso waxaa jirta is a good way, is a negative way. So mostly inagu waxaan parents waxay ka barteen dhinaca madarta yara. So switch sometimes u bedbedel. Mar dhinaca kul mar dhinaca because markuu qofku qalad sameeyo show him like qaladkan inaanu wanaagsanayn the bad way ku tus. Haddaad marmarna qofka like isugu dhex darta dhinacun ha ugu haynde. Don't be too sweet, don't be too sour. That's true. Dhexda ku hay and just try your best to understand because the age is different. Markuu ilmuhu yar iyo markuu weynaado saa loo dhaqmasa is different. You can't treat the same kid the same energy you was given when he was 10. You can't do the same. Quick question, bro. Do you remember intaad soo korayseen, like have your parents ever said I love you to you? They can't do it. There your parents say it. Well, Allah if they don't do it, who else will do it? But I mean, My wife. Somali So are you adopted? Bro, even Somali You say Somali bro. parents. Now how are you who do it? Listen to me. Listen to me. talking waxaan ka hadlay inago dhanba. May Ahmed, We are listen to me. Somali Wallahi, parents? Like su'aashaasi waa kana kari- يعني Ahmed, inta lagu yeeray like hoyo amba abuntu ku yeeray. Bro, I would die. I love you. do you know I asked you that question Hey. long ago? Yeah. Primary grade. Faisal adiga I ma was not expecting, Yeah. bro. adiga what about you? Marka No, adiga is a no. Never. no. I never But thought I about it. think I I think if show my love to my mom in it's- other ways, but it's I will never impossible. say I love you. Yeah, that's in I never movies, said bro. that. That's in movies. Saying Parents can muguri. parents mugu. No, I never. Aba wuxuu guri waxa dhigo. Soomaalidu Waxa dhigo ma garanaysa aqaana Ahmedo. express How many feeling. times aan maqlay wax dhigo? Ka badanta wallahi. That's true there. Wax dhigo riya. Wax dhigata. Ka riya. Xaqmansa. Aba I love you. After all those يعني at least there is a point. Wuxuu guri But one I time. love you. listen to me. Waxaan ka dhex aragnaa the The movement yeah. Yeah. feeling, the action. Like you can feel 100%. But like it's different It's when different you to hear say it. person I never said that. Iminka maanta your I girl, never heard that. if she says I love you, you'll feel it. I'm not gonna believe that. Like in hadday sagaal wax kuu soo iibiso, you'll just feel like, Oh man, shit. you get me? Yeah, man, I So know the feeling. saying it out loud, Ahmed, you fell like in it's the like, zone. Yo, yo, this is like a reminiscing, bro. Remembering times, bro. What do you guys say? Something. Yeah, it Listen, takes you bad, back. man. I know, bro. So saying it Shit. and Saying doing it, actions it's are two different. different things. Different. Because at least you need to hear it once.
Wallahi, hearing because it will help you a lot mentally with it. hearing it, wallahi, is What a way 10 confirmation. times better than your wife saying or your, I don't know, your relationship saying. Yeah, I think I'll tell my kids I love them. Do you At one promise? point, يعني Do I you know promise? I'll be a harsh parent, mate. I'll be a tough ass parent. Bro, I'll whoop their ass, bro, if they're out of line. I swear to God. But like, I'll at the same time show them affection. No, show them that. Do you know? I will live with Khalas. I will live with Do you know what about the I'll life? reassure them, bro, because it's different. You know, Sheikh عندك سنة يكوها مفتي بوها وحوري يعني generation كان إمك don't treat them like 10 years ago generation كوسيدة هاي. كون إمك سيف عم بفكرني يعني ما يوحى لقول لي it's different يعني even واحد نركي ما تقرأنا سنة كان لا شنو ليش كستوح لي قاب ولا رقم لا يعني وحول لي هاي إمك إنه يعني generation كي إنه هري there was يعني واحد difference إنه دحين بيجران بنو مالنا I think أنا وان قراني I know for sure إنه there's not a big difference لكن إنه generation كي أنا يكون صوص صعدة إمك there will be a huge difference there will be a huge difference. No, the thing أحيان and generation كان إمك they smart they know they mostly know what you know exactly because you guys using social the same, media so the internet treat them like with experience you can't treat them with what you know so واحد كل رقم مثلا like وحيابات ده أضو سلادة كيلالي and try to tell them in a good way هل بدي سوي سنيو listen to me listen to me work do you know what I like raising a child is the hardest thing bro imagine you raising yourself in all over again no all over again you know all over again you're raising yourself all over again this time you're in control وحنا نعرض جرانسا وحنا نعرض you know what I tell my mom مرة قار وحن كور هذا حتى نسألي كرو عنو حتى نسألي كرو if I could have عرضت هذا يعني حتى يصير عنو هيا نقول كرو I'll never have a complaint because I'm the يعني عنو طبيعتي ذا كرنا يا يو I know my parents انت أنا وحي شيء دونا I'm so considerate bro when it comes to specific things that's good I like that so وحوي إمك my mom حلاقي يابا ولا يابتها she be like يعني وحيابها قاربان نسكسي وقاده واسكسي وقاه يعني يقوم يحيى إمك سيدا like back in the day sometimes يعني إمك أنا يوم ما مركان وضع هذا إنه حنوضع هذا الناس دي يعني like I know like وان قرنا يا وحوي for my age يعني so I think يعني وحوي if I can have a kid like me bro I'll be chilling you know what I'm not gonna have someone like me I'm dumb as fuck I need someone smarter than me so I'll be better you'll treat them to be better don't put yourself down course. bro I'm not it's just I want my kids to what about you nigga for me bro imagine أذكر إمك you take care of yourself واحد الخالد go there take care of yourself completely grow yourself by yourself that's hard man so imagine you're doing times 3 times 4 let's just say you won't have more kids right because I want to have 6 bro you want to have 6 that's what I just said that's what I said it's just a number don't stop until your milk is over that's a good number bro that's a good ass maybe number I want to have 6 like at least I want to have 5 kids bro and a 1 girl other way like just like us 5 boys like us summer 5 boys and I half it's better 3 and girls are really good man I need 3 girls guys are good on some listen to me I would like to have listen to me I ain't talking about 5 sons and a girl just like us days like well I'm not gonna call it this like you wanna do deja vu bro oh yeah no I'm gonna say deja vu but they said you know I want to have 5 inamo and a girl it's like يعني bro inamo is a blessing how about they're blessings as well yeah both blessings children are blessings bro human being is a blessing a person is a blessing مو هذا all this سوق فردي he's a blessing ما traffic ضد time he's a blessing at least وحبك شيء everything go Allah bro everyone is a blessing man. so I go and you will be a boy but I want 3 girls and 2 boys 2 boys can we put up a bet like what like what and eventually each one of us will get married and have kids right of course inshallah what do you think your first and born will be a girl I want in the I think it's not what you want it's what do you think it will be
يعني إلهي baa garanaya but لكن what do you think What do I think? yeah Never thought about it. But I can think about it now. what do you think Like what I think, so yeah right now it will be it's what I want there, the boy. a boy okay what about you so Ahmed Shaggy boy بدون like I believe in like I'll have a girl So that's it. I You believe in have- girl like I want boy too I'm inshallah not I'd say Same. I'm half and half but like I'm leaning to to the sun side you give hope Like for anything, girls it's right now like you a do big think it's a big possibility that I'm gonna have a Bro, if I go the other because side, right it's now still okay. the birth rate of boy to girl ratio the girl ratios are high Always. yeah. Nah the reason like intan dambe because the more waqtigu soo dhawaado qiyaamo waxa la yiri hablaha badan ee dhalashada hablaha So but ragga waa laga yaabaa ragga way tira yaraanayaan yeah. there's a guy who really I know the information hello girls can get So I think guys that nigga's capping a lot I think waqtigii waa soo gabaabsamaya because it's been a while and hadlanay waxaan leenahay dadkana dhegeysanaya mana daawanaya please subscribe حبيت ما قلت comment, like حبيت ما any قلت idea in ma قلت yeah go ahead ما كيف فكرت your fair child مقعة دني my first child I don't think I have a choice my girl will have it seriously yeah are you allow her are you will allow her it's okay yeah it's not that's called nigga you're weak what was that bro I want to name at least few but like first child yo let me tell you one thing Yeah, it's you know okay, you you know can you let know her. each one of Bro, it's us as a kid waxay leeyihiin laba magac anaga xaafadeedu but like one will stick you think magacyadu aabay bixiyay some of them stuck magacyada hooyadii bixisay some of them stuck nah bro waxa laga yaabaa awogii inuu magac bixiyo magacaasi ku dhawo that's true iminka magaca cabdifataax ayaga yar dee waxa bixiyaan umalanaya awogii allah naxariiste aniga magaca lay bixiyay I think hooya magacayga ii bixisay Khalid but laakiin awogii wuxuu ii bixiyay another name yeah don't say I thought I know that hadana garin why the Khalid ma garanay baad magaca garin well I know him I know him no don't say I will tell you after the broadcast yeah inshallah after and أنا ugu horeeya I wanted Adam well you guys thought about this of course man yeah of course my sister always wishes waxay ugu taray you're gonna have the first say good I will have the first I think that's a good mentality though he's getting ready to have kids bro that's good he's يعني waxa la yiri intaadan physically aadan diyaar iskaga dhigin mentally I think we said it that's good they up to you podcast kan hore oo both of us I don't think you're ready Ahmed right now you're trying to do it yourself no now you're trying to do it forever bro you're not ready to Ahmed look at marry me I'm ready for you ready Sama yeah yes okay why you sound like you want to I'm bring just asking I'm being serious man for a minute okay I think we have to wrap this up we have and to wrap this up. so yeah what I was saying subscribe kan nagi lobin walaal you have to and Hey, Lovina. comment kana waa hadii you know whatever you want to tell us like tana wad garanaysaa Instagram ka Ideal Ideas 2021 YouTube ka Ideal Ideas every platform now so gil doona inshallah For inshallah sure. inshallah thank you and your for your support and it really helps we don't want to mess this up but like we might just add a few things that's coming up yeah inshallah so we're dhammaatay inshallah sidaas yaa sarag dambe waxay assalamu alaikum